بسم الله الرحمن الرحيم صدح قضب بان كهادليا mid waa wasaaradda midna waa wasiirka midna waa masaajidada qodobada waa wasaaradda saaka wasaaradda markaan soo galay waxa jooga Sheekh Cabdi Mucdiye laba washmaan iyo afar khamiis ku waran wasaaradda dhimida diinta iyo waqafta shaqaalaheedii meel tageen lama garanayo cid ka shaqeysa meel joogto lama garanayo laba cisho shaqeysa waa maalinta roob doonta la tukanayay iyo maalinta bisha la waayo midna waa wasiir waxaan ka dhigayaa wasaaradda ugu shaqada badan la wasaaradda waana ka tilmaanaataa midna waa wasiirka laftiisa wasiirku ka liitaa uu ka takoorayay wasiirada kale يعني وزيرada kale way xiriiriyaan way isla soo hadlaan aniga cidna ma la soo hadasho wasiir walba 9 ka rabadaan sanadkii hal mar bay soo garaaca wasiiradu 9 ka rabadaan bay soo garaacaan bishii miyaad aragtay idinku miyaad aragay maxay tusay anu bishan ka shaqeeyay mid labaad waxa arkaysaa anigoo dhamaa wasiirkii dhamaa diinta iyo waqafta xaflad baa leeyahay yariya wasiiradu dhan bay isugu wada imanaya waxa la go'nay aayadaha ku furo iska fadhiiso maxaa diiday in baraarujiyo oo aan la hadlo oo wax u sheego يعني هذه أمانين قال أي مانية وسيرودي ودم بوضع عن قاضي ماشي فيديو سور كي يقولوا حد يابطه وسير كني دين تميل لورني أي لورني أنا قال لك فيديو ما بدي سنت الكتل تلم على ياكي الحين جدين يستوي وسيرودي قروح بالناظر وأنت بقين الله جميل يحب الجمال وأنت قروح بدن أنت تحطه وقرون هذا وسيرودي وده فريسة كده مقدم مع وسير حنان هذا حوالها يجي قروح بدن سوى حوالها لا ضرر أنا وسير دين دي وقفتها يعني معقول ما إما كمان كان صاحي مؤمن الضعيف أنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف maxay diideen mu'min qawi noqdo oo wasiirka ka ugu hadalka adag ka ugu dhaqdhaqaaqa fiican ka ugu shaqada badan ka ugu qurux badan noqdo si aan qudwo iyo ugu noqdo tusaale ugu noqdo wasiirada qodobka saddexaad waa masaajidada waynu ku tukanaa waynu ka soo baxnaa laakiin dhexdooda wax ka dhaca moogin yani carruurta waxaynu ku tarbiyadeynaa masaajidka inay yimaadaan oo uurkii ka wada jecel yihiin إنك يا رب قولي كسوك حينسا أو تشعل مساجكين كنت كده إلهي وعبادته إمامكم بالريح يودع فديني إيجا سارة حاجة الدنبيجة جاية يعني محل ما هي قدرة وهكردامينيسا ومحل أمنية تشبينيسا صنع إمام مساجك هذا وطالع يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسقي قدوة إنه قصة بنات مركو الصلاة ده كتشرو مساجك تكوني حسن حسين تمك ككوري تشري نكو عيار تشري سوق سجود سن سجودوا ليرين تشري سوق إلى الله يعني كدعم ميولن كري waa khayr khalq ilaahay iga qabtay inta masaajidka tukuna ku yariga hay iska daynaga imaamadayna haday ku yaro naqani luqunta ka horeysa ku tukunaya wallahi min naarada kulaalay ilmaha min naarada laga soo qaaday ay wali inta mikrofoonka qaato oranaya kii dhalinimi yani carruurteen hadhow tolo soo diinta xagga dambe ka qabsan maayay sad masaajidka xagga dambe u keenis waa kuwa suuraalada xagga dambe ka wadirday ee diinta ka wada baxay maxaad u niyad jabinaysa yani inta carruurtan lagu diray iimaan ميانا درك سفكن هرجي بيسا خلصان بدأ أودياشين كتيرة لا بدأ أوديا كونها كتيرة شحبة كشيء كستني هذا طلبك بتاعك بحني عيار لاين تقولش يا صح ميت كل حاجة كتيرة واحد مدابين يمكن تتكوتشروا مع رضوان كقاضي يمكن سجودين بكسر سجودين تقولش من هذا بصراحة باك خلطان ميت كل حاجة نتقدم مساجكوا فرم بعرق كتعاونية تتكوت هذا مريء وشوية ما تشرتوا تقولش يا صح ميت كل برتم فرديا دعادي باك خلطان الله بعد تنسى إلى هاي بريء دعادي لقى ما أقبل من هذا بالدعاء بيحكي غلطين تقولش يا صح ما عرفتهم كدري taasi waa mid waxaanu sameyn doonaa culimo baraarujista oo qof walba su'aalihiisa uu soo bandhigto wax u sheega saxa waxaad arkaysaa masaajid iska eedaamay arkaysaa muaddinkii eedaamay iyadoo salaadiiba gaarin oo moodeen kaliya la cadaabay yani waxaad arkaysaa masaajid iyadoo salaadii laga baxay aqiimaya taasina waa inaynu masaajidada midayno waa masaajidada midayaduna waa go'aaniga go'an qodobka ugu dambeeya telefoonka game ka aragtaan wasaaradda markaan saakay shalay baa la doortay culimada dhalkii hanbilin lahaayeen waxay soo direen firqadeed ka tirsan tahay firqadeed tahay sheekh midna hay ma jirto firqad gaar oo nabigu shafaaca qaadi qiyaamaha la sheego jirta kibigeena miyaan inaan mudan kitaabka ilaahay sunnada rasuulka iyadana waan midayn doonaa qodobka ugu dambeeya kaga tagay wassalaamu calaykum